gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil iyo xogayaha degmada Berbera ee xisbiga Kulmiye oo weheliyaan gudoomiyaha xisbiga Kulmiye ee degmada Sheekh iyo gudoomiyaha Kaaminka ee degmada Sheekh ayaa kormeer indha-indhayna ku soo maray xafiisyada xisbi xaakimka Kulmiye uu ku leeyahay deegaanadan ay ka mid yihiin Suuqsade, Faamaale, Agaari, Ximan, Doodama isla markaana kala kulmay soo dhaweyn diiran intii ay mas'uuliyiintu ku jireen socdaalkan salka ku haya indha-indhaynta iyo xarika jirka xafiisyo cusub oo xisbi xaakimka Kulmiye uu ku yeelan doono deegaanada aynu soo sheegnay ayaa khudbado go'goos ah oo mas'uuliyiintu ay taageerayaasha xisbiga Kulmiye ee ku sugnaa magaalooyinkaasi ay u soo jeediyeen waxay yiraahdeen taageerayaasha xisbiga Kulmiye ee tuulada Gugux inta haddaan ka gudbo waxaanu halkan maanta aanu maraynaa inaanu furno xafiisyadii xisbigu lahaa aanu ka furno magaalada Gugux hadalka ku dheeraan maayo intaasaan ku soo dhaweynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. reeg waxaan noolaadaan xisbiga Kulmiye aan noolaado dhammaantiin waa salaamantiin kullay reeg cusbin aniga Axmed Ismaan Xaaji Axmed ba gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil magaalada hore ma shirnay annagoo madrasada sidoo ma shirnay annagoo masaajidda sidoo ma shirnay waa la saxan jirnay maanta xisbiga iyo xisbiga Kulmiye Musabbix Abdi socodka simeysaan aad bay maasantiin. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. halkan aanu joogno waa Suuqsade waxaan u nimi in laga furo xafiisyo anna waxaan hayn wafti uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka degmada dadweynaha Suuqsade si noo soo dhaweysteen aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa. Suuqsade waa meel degaana oo maguurta waa dad degaana waa dad ku astaysan oo ballan qaaday oo Musabbix hortiisa ka ballan qaaday codkooda iyo cududooda inay siiyaan soo sidaa maaha موسى عدكان سينا سماها ساسانا بلنا Suuqsade وكل مية سماها ساسانا بلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan aanu joogno waa Suuqsade waxaan u nimi in laga furo xafiisyo anna waxaan hayn wafti uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka degmada dadweynaha Suuqsade si noo soo dhaweysteen aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa. Suuqsade waa meel degaana oo maguurta waa dad degaana waa dad ku astaysan oo ballan qaaday oo Musabbix hortiisa ka ballan qaaday codkooda iyo cududooda inay siiyaan soo sidaa maaha موسى عدكان سينا سماها ساسانا بلنا Suuqsade saaka bacad ka taabna ee sugayay waftigeeyan ka yimid Saaxil iyo Sheekhda ay ka mid yihiin gudiyadii gudoomiyaashii degmada iyo kuwii xildhibaanada iyo odayaashii iyo gudidii kaambeynkuba marka halkan waxaan u nimid in aanu ka furno xafiisyadii aad diyaariseen ee adinku qalabkiisii hawshiisaba soo bandhigteen in aanu idin furno. number 1 waxaan horta idinkaga sidaa salaan diiran anigoo ka wakiila madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamuud Siinayo salaanta lamida waxaan idinkaga sidaa musharaxa xisbiga Kulmiye Mujaahid Musabbix Abdi oo halkan geedkan taariikhda dheer ku leh degmada Gugux deegaankan Gugux idinla fadhiyay oo idinkugu yimid oo u ballan qaadeen inaad siisaan codka iyo maalinta doorashada salaan diiran oo kariya laabaan idinkaga sidaa salaanta kadib waxaan aad idinka mahad celinaynaa sida aan noogu soo diyaar gareeyeen oo aan noogu soo shirteen rag iyo dumar haween cuqaal waxgarad dhalinyaro odayaal dhammaan barnaamijku waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantiin. dhaqdhaqaaqa xisbi xaakimka Kulmiye ee ku aadan u diyaar garowga ololaha maalmaha soo socda la filayo inuu ka bilaabo guud ahaan dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa marba marka ka dambeeya isa soo tarayay. Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Cabdirashiid Suul telefishinka caalamiga Soomaali Cable magaalada Berbera.